taariikhu markii ku beegnayd 16 bishii March ee sanadkii 2015 nin gaari watay oo marayay meel wada oo aanay gawaadhi badan marin oo ku taala magaalo lagu magacaabo Sansatan oo ka mid ah dalka Canada ayaa wuxuu ka helay ninkaas gaariga watay wadadaas uu marayay meyd yaala oo uu eegay inay iska leedahay meydkaas gabadh dhalinyaro ah. gabadhaas uu meydkeeda ninkaas helayna waxay ahayd mid halkaas taalo oo aan xidhnayn kabo. bilowgiina wuxuu isku dayay ninkaas inuu kiciyo gabadhaas oo una qasiyo bal inay soo toosto, laakiin dhammaan isku dayadiisii uu isku dayay waxay ku soo dhammaadeen fashil. wuxuuna garowsaday in gabadha meeshaas taale uu jidhkeedu qabow yahay, taasoo macnaheeduna uu yahay in gabadhan aanay nooleyn oo ay dhimatay. ninka meydkaas helay wuxuu la soo xidhiidhay ciidankii oo uu soo gaadhsiiyey waxaan uu arkay. ciidankiina waxay u soo direen askar meeshaas isla markiiba si degdeg ayaana loogu bilaabay goobtii baadhitaankaas oo noqon doona mid waqti dheer qaata oo sidoo kalena ka qaata ciidanka dadaal iyo baadhitaan badan si ay u helaan qof ay ku eedeeyaan ciddii ka dambeysay waxa meeshaas ka dhacay, iyo sidoo kale in la caddeeyo shakhsiyadda gabadha meydkeeda la helay cidda ay tahay. ciidankii waxay ka heleen gabadhaas dhimatay qoorteedii nabare kaga yaala, taasoo iyadana muujinaysa in gabadhaas ay ciijin la kulantay oo la ciijiyey markii la dilayay. laakiin ciidanku waxay ku qasbanayeen inay u qaadaan meydkaas baadhitaanka caafimaadka, halkaasoo baadhitaan loogu sameynaya meydka oo lagu caddaynaya sababta dhabta ee gabadhaas ay u dhimatay waxay tahay. waxay ka heleen ciidankii alaab kala duwan meydka gabadhaas dhinaciisii. alaabtaasna waxaa ka mid ahaa jaakeed ag yaalay gabadhaas iyo saacad nooca dumarka ah iyo sidoo kale suun isaguna nooca dumarka. ciidankiina may ogeen in alaabta meeshaas laga helay ay iska leedahay gabadhan meydkeeda la helay iyo in kale, laakiin meel ayay dhigeen alaabtaas si ay ugu adeegsadaan marka dambe howlgalka baadhitaanka ee la wado. haddaba ii kula tahay daawada inay tahay gabadhaas meydkeeda laga helay meeshaas. gabadhaasna macid ayaa wax yeeshay oo dishay mise si kale ay wax u dhaceen. arrinkaasna waxaa kasii muhiimsan sidee sawir caadi u ekaa uu selfie ahaa oo lagu soo faafiyey baraha bulshada ee Facebooka uu xaliyay kiiskan cakarna ay ku wareereen ciidankii waqtiga aadka u dheer. si aan sula ogaana jawaabaha su'aalahaas ila soco daawada muuqaalka ilaa dhammaadka. si la ogaado shakhsiyadda dhabta ee gabadhaas meydkeeda la helay, ciidankii waxay ka qaadeen gabadhaas sawiradaas oo ay ka qaadeen taatuuyo jidhkeeda ku yaalay gabadhaas, kuwaas oo ahaa taatuu xidiga ah iyo mid kale oo weji libaaxa. waxayna ku soo faafiyeen sawiradaas oo ay ku soo dhafeen warka sheegaya dhimashada gabadhaas warbaahinta kala duwan ee waddankaasi uu leeyahay. ciidankuna waxay rajeynayeen in qof uunu garan doono gabadhaas meydkeeda la helay cidda ay tahay. waqti dheerna may qaadan ba arrintaasi oo ciidankii waxay ogaadeen cidda ay tahay gabadhaas dhibanaha kadib markii ay uga yimaadeen dhowr wicitaan oo kala duwan qoyskeedii. waxaana la ogaaday in gabadhaas lagu magacaabo Britney Gargar oo da'deeduna ay maraysay 18 jir. waxay ku tilmaameen dadkii yaqaanay iyo qoyskeedii gabadhaas lagu magacaabay Britney inay ahayd gabadh firfircoon oo dhaqdhaqaaqeeduna u badnaa. waxayna ahayd mid mar dhoweed dhammaysay oo ka qalin jabisay dugsigii sare ee iskuulka una diyaar garoobaysay inay jaamacadda gasho. laakiin sidoo kale waxay ahayd gabadh xoogaa qalqaaliya. waxayna ahayd mid ku waalan inay aaddo xafladaha habeenkii oo ay soo dhafarto, arrinkaas oo uu sii dheeraa inay aad u isticmaali jirtay khamriga iyo maandooriyaasha kala duwan. waxaa laga yaabaa in carruurnimadeedii aan wanaagsanayn ay soo martay gabadhaasi inay door aad u weyn ka qaadatay arrintaas ay waddo, sababtoo ah Britney iyadoo da'deedu ay aad u yar tahay ayaa waxay la kulantay inay ka tagtay waalidkeedii iyo qoyskeedii. hooyadeedna waxay ahayd mid isticmaasha maandooriyaasha kala duwan, arrintaasoo ku riixday inanteedii yarayd inay ka tagto una tagta ayadeedu ay la soo noolaatay yada. ayadeeda inay la joogtay oo ay la noolayd gabadhaas lagu magacaabayay Britney ilaa markii ay ka dhimatay ee meydkeeda la helay. iyadoo arrintaasi ay jirtayna haddana Britney waxay ahayd gabadh rajooyin iyo riyooyin badan leh. waxayna ku riyoon jirtay inay meel sare ka gaadho huteelada iyo inay ugu dambaynta samaysato huteel iyada u gaara oo iyadu ay leedahay. si ay u rumaysa riyadeedaas ay maskaxda ku haysayna waxay ahayd gabadhaasi mid ka shaqaysa shaqooyin kala duwan waqtiyada ay tahay fasaxa, waqtiyada ay fasaxa tahay ee iskuulkeeda aanay dhigan jirin. kadib markii meydkii gabadhaas laga helay waddadii ay taalay, ciidankii waxay bilaabeen inay wareystaan qaar ka mid ah qoyskeedii, dadkaas oo ay ugu horeysay ayadeedii ay la noolayd.
aydeedna waxay u caddaysay ciidankii in Britney ay israaceen habeenkii ka horreeyay maalintii la helay meydkeeda gabadhay saaxiib ahaayeen oo ay wada aadeen magaaladii meydkeeda laga helay si ay halkaas waqti ugu soo qaataan oo ay u aadaan baararka habeenkii la isugu yimaado. waxayna u sheegtay ayadii sidoo kale ciidankii in gabadhaas ay israaceen Britney ay ahayd gabadhay saaxiib ahaayeen oo lagu magacaabayay Cheyenne. waxayna ahayd gabadhay muddo aad u dheer saaxiib ahaayeen Britney iyagoo isbartay labadaas gabdhood markii ay wada dhigan jireen iskuulkii hoose dhexe. labadaas gabdhood ee lagu kala magacaabayay Britney iyo Cheyenne waxay ahaayeen qaar si aad isugu dhow oo saaxiib dhowa sababtoo ah labadaas gabdhoodba waxay soo mareen carruurnimo aan wanaagsanayn oo waxay ka soo cawdeen yaraantoodii inay ahayd mid aan wanaagsanayn. labadii waalid ee dhalay Britneyna wax weyn kagamay duwanayn labada waalid ee dhalay gabadha kale ee Cheyenne. ciidankii waxay baadheen social media ay isticmaali jirtay Britney si ay bal halkaas uga raadiyaan wuxuun caddayna oo ka caawiya baadhitaanka ay wadaan. waxayna halkaas ka heleen qoraal lagu soo taagereeyay akoonkeedii oo ay soo faafisay gabadhii lagu magacaabayay Cheyenne ay saaxiibka ahaayeen kaasoo ay ku soo qortay kumee warkaaga maan maqlin maalmahan waxaan rajaynayaa inaad wanaagsan tahay oo nabad qabto. sidoo kale ciidankii waxay ka arkeen Facebookaas sawir ay si wada jira u soo faafiyeen labadaas gabdhoodba oo ay soo dhigeen Facebookooda 14 bishii Maaj oo ahayd hal maalin ka hor maalintii Britney meydkeedii la helay. sawirkaasina wuxuu ahaa sawir selfiya waqtigaas ay soo faafiyeen ama iska qaadeen. sawirkaasina wuxuu ahaa waqtiga ay joogeen gurigii Britney ayadeed oo ay u diyaar garoobayeen inay ka tagaan guriga oo ay aadaan magaaladii kale ay ku socdeen. sida caadiga ah ciidanku ay sameyn lahaayeenna waxaa loogu yeedhay gabadhaas lagu magacaabayay Cheyenne oo ahayd saaxiibadii Britney baadhitaankii sababtoo ayada ayaa ahayd qofkii ugu dambeeyay iyadoo nool ay wada joogeen. gabadhaasina waxay u sheegtay ciidankii in iyada iyo Britney ay wada aadeen baare kala duwan habeenkaas iyagoo ka soo bilaabay baar lagu magacaabayay Manchester kadibna ku xigsiiyey mid kale oo lagu magacaabo Colonial kadibna waxay aadeen xaflad kale oo lagu qabanayay guri. waxayna sheegtay Cheyenne in gabadhii Britney ay isku barteen xafladdaas ay aadeen dhexdeeda nin daadiisu ay maraysay meelaha 30 jir iyadoo sheegtay in waqtigaasina uu ahaa 4 habeenimo meelahaas. Cheyenne waxay tiri waxaan doorbiday inaan ka dhex baxo saaxiibadii Britney iyo ninkaas ay isku barteen xafladda si ay waqtigooda u wada qaataan oo aanan u qasin. iyaduna waxay sheegtay inay aaday guriga adeerkeed oo deganaa meel u dhow meeshaas ay ka dhacaysay xafladdaasi. ciidankiina sidoo kale waxay ugu yeedheen baadhitaankii Cheyenne adeerkeedaas ay sheegtay in habeenkaas ay gurigiisa aaday. waxaana la weydiiyey waxaasay sheegaysay in inta uu adeerka u yahay inay run yihiin iyo in kale. isla waqtigaas baadhitaankii caafimaadka ee lagu sameeyey meydkii Britney ayaa waxaa laga soo saaray natiijadii ka soo baxday baadhitaankaas kaasoo lagu caddeeyey in Britney ay u dhimatay sababta ciijin la ciijiyey darteed. waxaana la caddeeyey sidoo kale in lagu ciijiyey gabadhaas suunkii madoobaa ee meydkeeda agtiisa laga helay. sidoo kale waxaa caddeeyey baadhitaankaas caafimaadku in laga dul helay suunkaas dushiisa 2 DNA oo kala duwan. labadaas DNA mid ka mid ah waxay iska lahayd gabadhii dhimatay ee Britney kalabaadna weli lama caddayn ama lama ogaan cidda iska leh laakiin waxaa iska cad in DNA-gaas labaad uu iska leeyahay dambiilihii ka dambeeyey dilka gabadha. sidoo kale waxaa la caddeeyey in gabadhaas Britney aanay la kulmin wax xadgudub ama kufsiya. ciidankiina waxay baadheen waxyaabaha ay duubeen kamarooyinkii habeenkaas kamarooyinkii ku yaalay goobtaas waxayna arkeen in labadaas gabdhood ay aadeen baarkii lagu magacaabayay Manchester laakiin kama helin kamarooyinkii ku yaalay baarkii Colonial in gabdhahaasi ay habeenkaas tegeen baarkaas. taasna macnaheedu waxa weeye gabadhii Cheyenne been ay ku sheegtay arrinkaas ahaa inay aadeen baarkaas oo ay wada aadeen iyada iyo saaxiibadeed Britney. arrinkaas oo ka dhigay ciidankii inay shaki aad u weyn ka qaadaan gabadhan lagu magacaabo Cheyenne. sidoo kale waxay heleen ciidankii waxyaabaha ay duubeen kamarooyinkii ku xidhnaa guriga adeerkeeda ay sheegtay inay u tagtay habeenkaas iyadoo halkaasna laga arkay inaanay habeenkaas teginba Cheyenne guriga adeerkeed oo hadalkaasina uu been ahaa. marka arrinkaas ay ogaadeenna waxay mar labaad u yeedheen ciidanka adeerkeed. markana adeerkeed wuxuu qirtay inuu been sheegay markii uu ciidanka u sheegay in Cheyenne ay habeenkaas gurigiisa timi wuxuuna sheegay in Cheyenne iyadu ka cusatay inuu beentaas u sheegay ciidanka. sidoo kale wuxuu sheegay odaygaasi in Cheyenne ay u sheegtay in habeenkaas ay la kulmeen iyada iyo saaxiibadeed Britney 2 nin oo madow ah oo ay kula kulmeen baarkii Manchester. labadaas ninna way soo raaceen oo waxay isu soo raaceen gurigoodii oo baarkaas u dhowaa. bilowgiina sida ay sheegtay waxay wada qaateen labadaas nin ay isbarteen waqti aad u wanaagsan
iyagoo ahaa waqti dheer qaar khamri cabaya oo sidoo kalena maandooriye isticmaalaya. laakiin arrinkii wuu isbedelay marka ay isku dagaaleen raggaas maandooriye. waqtigaasna Cheyenne waxay aaday suuligii gurigaas ku yaalay. marka ay ka soo baxday suuligiina, Cheyenne waxay heshay saaxiibadeed Britney oo dhimatay oo dul jiifta sariirtii gurigaas dhex taalay. wayna naxday markaa arrinkaas aragtay. laakiin mid ka mid a labadii nin ee madowga ahaa isbarteen ayaa wuxuu ku jeediyey iyadiina baaskooladii uu sitay. Cheyenne waxay u sheegtay adeerkeed inay raggaasi ugu hanjabeen inay iyaduna la kulmi doonto isla masiirka ay la kulantay saaxiibadeed hadda aanay ka caawin labadooda inay qariyaan meydkan saaxiibadeed. sheekadaasina waxay ahayd sheekadii ay u sheegtay Cheyenne adeerkeed siday wax u dhaceen, laakiin kumay qancin sheekadaas ciidankii oo kamid arag kamarooyinkii ku yaalay baarkii Manchester wax caddaynaya inay halkaas isku barteen oo ay iska soo raaceen laba nin oo madow ah. markii loo yeedhay gabadhii Cheyenne ee caddaymahaas la tusayna, kamay tegin sheekadeedaas oo ay kusii adkaysatay. Cheyenne waa la soo xidhayba oo jeelka ayay ku jirtay waqtigaas, waxaana lagu soo xidhay dembiga inay xadday mid ka mid a dukaamada alaabta lagu iibiyo. waqtigaasna waxay u arkeen ciidankii iyo dembi baadhayaashii in Cheyenne ay tahay qofka koowaad ee looga shakisan yahay kiiskan dilka ee saaxiibadeed Britney, laakiin haddana weli may ahayn caddayn toosa oo ay si rasmi ah uga eedayn karaan gabadhaas dembiga. ciidankii waxay ka codsadeen dhakhaatiirtii inay baadhitaan ku sameeyaan DNA-gii labaad ee laga helay goobtii uu dembigu ka dhacay. suunkii madooba ee la caddeeyey in loo adeegsaday in gabadhaas lagu dilo oo lagu ciijiyey Britney, in la soo qaado DNA-gii laga dul helay suunkaas, DNA-gaasna la barbardhigay DNA-gii Cheyenne. waqtigaasna baadhitaankii kiiskaasi wuu socday weli, laakiin wuxuu ahaa mid kusii dhowaanayay inuu yaraado uu istaago. dembi baadhayaashiina waxaa ku bilaabmay quus iyo inay ka quustaan inay helaan dilaaga. laakiin wicitaan soo gaadhay ciidankii oo uga yimi gabadhii laga sheegsanayay lagu magacaabayay Cheyenne eedadeed ayaa bedelay wax walba iyo sidii uu socday kiiskani. waxay u caddaysay Cheyenne eedadeed ciidankii in gabadha ay eedada u tahay ee Cheyenne ay la soo xidhiidhay subaxii maalintii la helay meydkii Britney iyadoo ku sugan xaalad cabsi iyo argagaxa. waqtigaasna wuxuu ahaa codka Cheyenne mid googo'aya oo hinta ay ooyeysay gabadhaasi darteed, iyadoo u sheegaysay eedadeed inay ciijisay oo ciijin ay ku dishay saaxiibadeed Britney oo ahayd saaxiibadeedii ay isugu dhowaayeen, waxayna dishay gabadhaas iyadoo ku jirtay xaalad sakhraansan oo khamri badan ay soo cabtay. iyadoo ay jirtay arrintaas ay u sheegtay Cheyenne eedadeed ciidankii, haddana weli Cheyenne waxay kusii dheganayd hadalkeedii hore ay u sheegtay ciidanka. ay ku sifaysay sida ay wax u dhaceen habeenkaas, wayna inkirtay hadalka ay sheegtay eedadeed ee ahaa inay qaratay iyadoo ay dembigan geysatay. isbeddelka dhabta ee kiiskan ku dhacayna wuxuu dhacay kadib markii ciidanka ay ku laabteen akoonkii Facebooka ee ay iska lahayd gabadhii dhimatay ee Britney. markana waxay arkeen ciidankii waxay ka shakiyeen oo dareenkoodiina soo jiitay. waxay soo celiyeen ciidankii sawirkii Britney ay soo dhigtay Facebooka, kaasoo ahaa sawir ay qaaday gabadhii Cheyenne oo selfie ahaa. halkaasna waxay ka arkeen ciidankii in Cheyenne ay xidhan tahay isla suunkii lagu ciijiyey gabadhii dhimatay ee Britney. arrinkaasina wuxuu ahaa daliilkii ama caddayntii ugu dambeysay ee Cheyenne ay inkiri kari weyday. intaa waxaa sii dheer oo sidoo kalena caddeeyey wax walba baadhitaankii lagu sameeyey DNA-gii laga helay suunkii lagu ciijiyey Britney, kaasoo la ogaaday in DNA-gii labaad ee laga helay halkaas inay iska lahayd isla gabadhan Cheyenne lafteeda. arrinkaas oo u suurtageliyey ciidankii ugu dambayntii inay ku jeediyaan Cheyenne eedayntii ahayd dilka gabadhii Britney ee ay ahaayeen saaxiibka aadka isugu dhow. markana Cheyenne may awoodin inay sii wada diidmadii iyo inkiraaddii ay diidaysay dembigan, waxayna u caddaysay gabadhaasi ciidankii in waqtigaas ay dhacdu dhacday habeenkaas inay ahayd mid si weyn u soo cabtay khamri badan oo sidoo kalena maandooriye badan soo cabtay ka hor intaanu ka dhex dhicin khilaafyada iyo Britney, khilaaf iyo muran aanay xasuusnayn ilaa hadda sababtiisa. waxay u sheegtay Cheyenne markii ay u ramaysay ciidanka inaanay si fiican u xasuusnayn waxa dhacay habeenkaas iyo waxa dhacay markaa iskhilaafeen saaxiibadeed kadib, ilaa heeray sheegtay inaanay xasuusnaynba waqti ay gacanta u qaaday saaxiibadeed oo ay naftii dhaafisay, iyadoo caddaysay sidoo kale inaanay garowsan waxan waalida ay samaysay ilaa ay ka dhimatay saaxiibadeed mooyaane oo ay garowsatay inay saaxiibadeed dishay. marka arrinkaas ay qaratay gabadhaasina, ciidankii may caddayn ama may ogaan sababta dhabta ee ka dambeysay dembigaas iyo sababta Cheyenne ku kaliftay inay disho saaxiibadeed. sidaa darteed maxkamaddii waxay ku eedaysay gabadhaas inay geysatay dembi dila oo aan badheedh ahayn intii lagu eedayn lahaa dembi dila oo badheedh oo weliba darajada koowaad ah. arrinkaasina wuxuu sababay sidoo kale in gabadhii Cheyenne la siiyo xukun khafiifa oo fudud,
shayaanna waxay ka hor qaratay dembiga ay gashay maxkamaddii horteedii, waxaana lagu xukumay dembigaas ay gashay dartii xabsi muddo 7 sannadood oo keliya, iyadoo laga sii dayn doono xabsiga sanadkan aynu hadda ku jirna ee 2024. arrinkaas in xukunkaas aadka u khafiifka lagu riday gabadhaas wuxuu ahaa arrin kadis ku noqday oo ay u qaadan waayeen qoyskii Britney iyo dadkii jeclaa is yaqaaneen gabadhaas, kuwaasoo u arkay in xukunkaas lagu riday gabadhaas shay aan u cadaalad ahayn. Britney qoyskeediina waxay ka sheegeen arrinkaas dhowr munaasabadood oo kala duwan oo ay ku cabireen inay ka niyad jabsan yihiin oo ay ka cadhaysan yihiin in gabadhoodii aanay helin cadaalad iyo xaq. maxaad malaynaysaa daawada adiguna? shayaan may mutaysatay in la marsiiyay ciqaab ka badan midaas lagu xukumay, mise maadaama aanu caqligeedu joogin oo ay sakhraansanayd wakhtigaas ay dembiga geysanaysay, waxay mudan tahay in la siiyo fursad labaad oo khaladkeeda ay ku saxdo? igula wadaag daawada dhanka hoose ee kommentiga aragtidaada. intaas ayuuna ku eegyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. ha iloobin hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto, subscribe inoo saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena Ogaal Cusub. waad mahadsan tahay.